dadka ehelka ah ee khayrka isu kaashanaya is-amrayaay naxariis ilaahay baa ku soo degta wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah u naxariisto nin habeenka qaar ka mida istaagay oo tukaday kadibna reerkiisa kiciyey oo ay tukatay hadday kici weydana biyo ku sayran say uga kacdo hurdada allah u naxariisto haweenay xaas habeenka qaar ka mida istaagtay oo tukatay kadibna ninkeeda kicisay oo uu tukaday hadduu kici waayana biyo ku sayray allah u naxariisto waa qoys iskaashanaya waa midka caajisaa la kicinaya kan nashaadka hayaa kicinaya khayr baa laysu kaashanaya allah tabaaraka wa tacaala amarkiisaa la fulinaya watacaawanuu cala albiri waataqwa sidaas daraaddeed ehelkaagu naar inay ka badbaadaan jannada galaan khayraadkan degaya tobankan dambe saami fiican ka qaataan adduunkaad la jeceshahay aakhara la jeclow haddii maanta layna dhihi lahaa yaa tobankan dambe ruuxii soo jeedaayey ruuxiiba waxaa la siinayaa 83 sanoo soo socota wixii ku filaan lahaa oo dhaqaalaha oo kharasha oo lacag oo guryo ah baa la siinaya war ma caruur baa seexan lahayd mise dumar baa seexan lahayd soo kulli hurdada lagama wada kacay waana soo wada jeedi lahaa haddii adduunyadii aad kula dadaalaysa ehelkaaga aakhiradaa ka muhiimsan qabrigoodaa ka muhiimsan qiyaamadoodaa ka muhiimsan la kulanka rabbibaa ka muhiimsan jannadaa ka muhiimsan waxaan dhalanteedkee adduunyada waxaa ka qaalisan aakhiradaa ka qaalisan sidaas daraaddeed buu nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ehelkiisa kicin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh